wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Dr. Xasan Ismaaciil Yuusuf ayaa si rasmi ah xadhiga uga jaray qaybta sifaynta Kalyaha oo lagu soo kordhiyay Cusbitaalka Guud ee magaalada Burco. Ugu horeynba waxaa halkaasi ka hadlay suduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Togdheer Dr. Aadan Malay iyo agaasimaha guud ee Cusbitaalka Burco Dr. Abdilaahi. qaybtii Kalyaha dadka xanuunsanaya Kalyuhu baana shaqeyneen Kalyaha lagu sifayn jiray. Waxa wasiir noo farxada in Cusbitaalku qaybtan oo aan ka jirin gobolada bari ay maanta ay nagu soo kortay Cusbitaalka magaalada Burco oo dadkeena xanuunsanaya Hargeysa u tagi jiray maanta shaqada halka lagu qabanayo. Runtii halkan waxaan uga mahadnaqayaa gudidii nagala soo shaqeysay inay maanta noo horgasho sida qiimaha leh noola soo shaqeysay Abdi Yaasiin iyo Maxamed ee kamid ahaayeen iyo Cali iyo aad baan niga ugu mahadnaqaynaa. qaybtii Kalyaha Sifaynta oo aan halu jirin ilaa intii la furay Cusbitaalka 1940kii oo maalintii ugu horeysay ee la furay qaybta Kalyaha waxaan kan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa gudida ka soo shaqeysay gudaha iyo dibadba ugu horeeyo Cali Dhama Dr. Abdi Yaasiin Maxamed Faarax guddigan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa ilaa maanta ilaa dibad ilaa gudo guddiga ka soo shaqeysay qaybtii Kalyaha Sifaynta mashiinada dialysiska mashiino saa hore loo sheegay waa markii ugu horeysay gobolka Togdheer laga furo qaybtaas ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu noo barakeeyo ummadeennii dayacnayd meelaha kala fogfog u qaban jirtayna maanta ay halkan ku helaan. geesta kale waxaa halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi waxaana uu gudoomiyuhu sheegay in laga maarmi doono qaybtani sifaynta Kalyaha ee lagu soo kordhiyay Cusbitaalka Guud ee magaalada Burco safaradii dheeraa ee loo geli jiray adeegani. intay safar dheer oo loo geli jiray oo ama mararka qaar hadii sabab jirtay in wadanka dibadiisa meel aan ahayn aan loo tagin iyada oo awoodda iyo maaragtay dhaqaalaha dadkan aynu ognahay waxa weeyaan runtii waa wax weyn oo gobolkeena ku soo kordhay runtiina waxaan uga mahadnaqayaa marka koowaad wasaaradda horumarinta caafimaadka oo aan oran karo ilaa maalintii wasiirka cusub Xasan Ismaaciil iyo staafkan maaragtay maamulka ee cusub ee wasaaradda ee gobolka heer gobol ay yimaadeen Cusbitaalkeena Burco waxa ka muuqda horumar weyn oo maalin kasta maaragtay aynu arkayno. wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Dr. Xasan Ismaaciil Yuusuf oo ugu dambeyntii ka hadlay halkaasi ayaa mahadnaq ballaaran u soo jeediyay cid kastoo Cusbitaalka ka taageertay qaybtani cusub ee sifaynta Kalyaha isagoona sheegay wasiirku in adeegani uu yahay mid bilaash ah. sheegaya dhammaan dadweynaha Soomaaliland waa bilaash lacag la idinka qaadi maayo haddii laga qaado aniga toosi la soo hadal waxaan ku faraxsanahay inaan Cusbitaalkii Burco aan ka furo maanta qaybta Kalyaha qaybta Cusbitaalka markii aan carruurta iskuul ku jiray waa lagu daweyn jiray ilaa maalinta ilaa intii ka horeysay aad sheegay waa maalintii ugu horeysay marka Kalyaha lagu safeeyo Burco xitaa Ingiriis markuu joogay lagu safeyn jiray Ingiriis baa aqoon safeynta bariga laba aqoonba علم فرصة شرين علم دكتورنimada ayaan gaarin halka waxaan aad u aad ugu faraxsanahay inaynu maanta Burco nasiib yeelanay inaan ka furo qaybta Kalyaha waa laga sheekeeyay muddo badan baa Hargeysa loo tagi jiray gobolada bari oo dhan dhibaato ku qabeen kilka shanaad sidoo kale maanta dalka furay waxa weeyaan Hargeysa miisaankiina oo ka qaadayna dadkeenina uu ka dhibaatadii ka haysatay way ka lasanayaan waa alaab qaali ah waa qalab qaali ah ogtiin u baahan joogto in gacanta lagu hayo. ugu dambeyntii wasiirka horumarinta caafimaadka Soomaaliland Dr. Xasan Ismaaciil Yuusuf ayaa si rasmi ah xadhiga uga jaray qaybtani cusub ee lagu soo kordhiyay Cusbitaalka Guud ee magaalada Burco ee lagu sifayn doono Kalyaha. Cusbitaalka Guud ee magaalada Burco ayaa tan iyo markii uu la wareegay maamulka cusbitaalkaasi Dr. Abdilaahi waxa laga dareemayaa isbedel weyn oo ku yimi cusbitaalka weyn ee magaalada Burco. Abdilaahi Maxamuud Muuse Xudayfi telefishinka caalamiga ee Ariel gudaha Cusbitaalka Guud ee magaalada Burco.